aad iyo aad ayaan u faraxsanahay soo dhaweynta aad igu soo dhaweyseen maasha allah. isbitaalka aad iyo aad heer sare u yahay oo qayb walba wax walba laga helayo any service dadka u baahdaan oo laga helo. siinba waxaan aad u farxay in laga helay maxaa la dhahay dialysis, maadaama cuduradan keliyada aad iyo aad u faafayso meel waxsay u timaadaba si baaritaan iyo wixiisi loo baahan yahay dadka dhan ay ku baaba'ayaan waxaa la dhahay cudurkan kelyaha failure, renal failure waxaashoone oona aan arkay qiimo oo jaban lagu sameeyo oo aan meel kale aan ku arkay qaali ah meelaha kale. marka halkaan dadka bukaanadaas waxaa ku awoobinayaa inay soomaalida inay ka yimaadaan oo dadka u baahan maxaa la dhahay dhaqidda kelida meeshaanaba qiimo jaban laga heli karayaa oo kaafi ah oo munaasab ah. mida kale waa maasha allah Dr. Dalmar asoo isbitaalkii daaweyntii wixii soo wado haddana wuxuu sii wadaa cilmi fidinta dad baridda inay dhalinyarada inay soo kobcaan inay waxbaridda caafimaadka inay kusii fidaan oo dalkooda iyo dadkooda u qabtaan. saasna waxaan ku boorinayaa dadka isku sheegayo diasporaha dhakhaatiirta dibadda joogo in ay isbitaal ay ku shaqaysan karaan inaa inta laga heli karo oo aanan oo ku tartamayso isbitaalaadka Yurub iyo wixii la mid ah. Perfino waxaa arkay oo aanan horey u arag oo BG dhahayaan oo waxaan u maleynayaa in halkaanaan joogyaala meelaha kale saas looga helaa u maleynayaa. marka waa wax weyn ah oo dalka loo qabtay dadweyne loo qabtay waa ku mahadsan yahay waana waajib dad walba qof walba dhakhaatiirta inay si dadkoodii waxa loo baahan yahay inay qalab maxaa la jiray cirib tiraan oo jeedaan si baahida daaweynta iyo kahortagga oo xoog la saaro ya maadaama laba meel hadda isbitaal ku yaalo Huliwa iyo Amirjaan. marka farax weyn baa tahay realmente waa waxaa duco iyo waxaas ay ugu darayaa inay barako iyo kulligeen inay caafimaad ilaah na siiyo cumri dheer iyo caafimaad dadka oo dhan ya inay caafimaad helaan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.